maxaa sababay dhaqaale burburka ay wajahayso kooxda Barcelona waa su'aal aad isweydiin karto marka aad wax badan maqasho Barcelona ayaa dhaqaale xumo wajahaysa waxaan u kala qaadaynaa arrinkan kooxda ku dhacday laba qaybood oo waaweyn kow maamul xumo iyo arrinka labaad oo ah dhaqaale burburkii uu sababay COVID-19ka Barcelona waxa ay ku jirtaa marxalad ay adag tahay qaabka ay uga soo kaban karto in muddo ah walow hadda maamulka majraha u haya kooxda ay sameeyeen qaab waliba oo ay kooxda uga bixi karto marxaladda ay hadda ku jirto labada sababood ee aan kor ku soo xusnay ayaan ku faaqidi doonaa warbixinteennan maamul xumida kooxda ka jirta waxa ay soo bilaabatay xilligii kooxda majraha ay u hayeen labadii nin ee kooxda ka soo noqday madaxweynayaasha ee Sandro Rosell iyo Joseph Maria Bartomeu kuwaasi oo kooxda geliyay xaalad adag waxa ay sameeyeen labada nin ee isaga dambeeyay xilka madaxweynenimo arrimaha soo socda kow saxiixyo waali ah oo ay kooxda u sameeyeen iyagoo aan in badan gorfeen saxiixyadaasi labo mushaaraad waali ah inay siinayeen xidigaha kooxda imanayay weliba iyadoo aan laga fiirsan saddex qaadashada deymo saaran dulsaar badan si ay ula soo saxiixdaan xidigo afar ku tagrifal awoodeed oo xad dhaaf ah sababta labaad ee dhaqaale xumida Barcelona haysata ayaa ah caabuqii dunida oo dhan aafiyay ee COVID-19ka Barcelona dakhligeeda waxa uu ahaa mid aad u sarreeyo waxaana ay fasal ciyaareedkii 2019 iyo 2020 soo saari rabtay faa'iido gaaraysa ilaa $1 bilyan taasoo ka dhigi lahayd kooxdii ugu horeysay ee kubadda cagta ah ay sameysay faa'iido dhaqaaleed oo gaaraya $1 bilyan Mareykanka ah laakiin nasiib darro dhammaadkii xagaagaas waxaa bilowday cudurkii caabuqa ee COVID-19 waxaana ay kooxdu khasaartay lacag ku dhow 244 milyan waxaana u soo xarootay lacag dhan 855 milyan halkii laga filayay inay soo xarooto $1 bilyan Mareykanka ah xagaagii 2020 waxa ay kooxdu ku bilowday khasaaro waayo meelaha ay dakhliga ka helaysay oo dhan ayaa xirmay ha noqoto taageerayaashii garoonka imanayay safaradii fasaxa baqaarka qalabka kooxda lagu iibiyo iyo soo booqashada madxafka kooxda ee taageerayaasha ay soo booqdaan waxaana ay Barcelona sanadkaas khasaartay $244 milyan Mareykanka ah waxaana u baaqday oo kaliya 90 milyan oo kooxda ugu baaqatay mushaaraadka ay siin jirtay shaqaalaha maalinlaha ah ee kooxda u shaqeeyo iyo dakhligii ay kooxda ku bixin jirtay kulamada ay ku ciyaarto meel ka baxsan garoonadeeda labada arrimood ayaa sabab u ah dhaqaale xumida ay kooxda wajahayso balse maamulka hadda jira ayaa sameynaya inay ka soo kabtaan midaas iyaga oo sheeriskii kooxda qaar badan oo ka mida gaday si ay u helaan dhaqaale badan oo lagu bixiyo diinta faraha badan ee lagu yeeshay kooxda haddaba qorshaha maamul ee cusub ee madaxweyne Joan Laporte hoggaanka u hayo ma ku guuleysan doonaan inay Barcelona ka bixiyaan xaaladdan waa su'aal jawaabteeda loo diin doono waqtiga